السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan isla eegaynaa xisbiga kaah oo maanta maxaa la dhahdaa gaashaanka u daruuray ma odhan karna dee ictiraafkii oo dhane dee qayb ictiraafkii ka mid ah inkastuu madaxweyne ciro uu shalay jawaabta sii siiyey oo uu yidhi yacni cidda dee kala miiqmiiqaysa qadiyadda falastiin ee ma garanaysaa hawl dee halkaa micna ka raadinaysa waa nin micnihii waa nin yidhi yacni baktiga ma cune fuudkiisaan cabbaa waxa weeye jawaabta shalay uu cirri sii bixiyey laakiin waxaan u sheegayaa xisbiga kaah iyo xisbiyada kaleba xisbigan waddani haddaanu nahay dhallinyarta jamhuuriyadda somalilan wadduu jeexay ictiraaf buu keenay weliba anu madaxweynahani dee uma aqaana madaxweyne ictiraaf keenan waxaan aqaana madaxweyne nuclear sigay cirra dee haddaan hadalka la celcelinay nuclear buu sigay dirqi waxay yacni dirqi waxay ku dhowaatay in uu maaragtay netanyahu amba israa'iil laba madax soo siiso amba hal madax marka horta madaxweynehan ictiraaf intuu dhaafay ayuu nuclear sigay dowlad nuclear labuu ka soo dhameeyey ictiraaf markaa sidii kuubaynu ku sigannay in 2 xabo 4 xabo meeshayna lagu rakibo kadibna innagu aynu bilaawna inaynu dowladaha ictiraafno intaasi waa xoogaa ku talaxtaga wey xisbiyada kaah iyo kulmiye waxaa laydinka fadhiyaa imise dowladood dowladaa laydinka rabaa sheekadu way soo dhaaftay reer hebel iyo waxa weeye hebel baa buur koray iyo hebel kalaa beri meel maray iyo waxa weeye reer hebel baanu nahay iyo maantana reer hebelba waxaas wuu isku soo gebagaboobay haddaanu dhallinyartii jamhuuriyadda somalilan nahay waxaan imin maanta wax ku qiimeynaynaa xisbi walowba imise waddan baad ictiraaf ka haysaa halkeed marinaysaa ajandihii arrimaha dibadda ee somalilan marka hawl fara badan oo arrimaha dabaddaabaa idin yaalla xisbiyada kaah iyo kulmiye midda kale waxa weye ictiraafkan uu cirra keenay amba jirid isha ha ku yeesho amba qajafaafidha ha yeeshe المهم والله كان المهم وانا لا كان وانو هيرغلay waanu dhaqaaqay waanu socday iminkana waxa la bilaabay in midhihiisii la gurto laakiin idinku ee bahasha hore u yara balaadhiyo sida uu wadani bahasha hal talaabo ugu daray amba hal baac ugu daray idinkuna laba baac ku dara oo dawladii jaarka waca oo waxa tiraadaan xisbiyo mucaaridaan nahayna maal gashada oo ka soo dhameeya oo bahasha siyaasadeeya oo waxa tiraadaan doonto meesha Israa'iil baabal ka saarinaya keena ictiraafyadii aanu Israa'iil kaga saar lahayn meesha xaggaad inaga inoogu soo jeesateen soo imika lama la Israa'iil mantiqadii problem ku tahay soo carabo dhan madiidana carabta ka soo dhaadhiciya mid isku dhamaystirno bugso oo fiican oo safaariya oo wixii soo dhigin ka soo qaada oo waxa tirahdaan waxa weeye waxaan meesha ka saarnaa Israa'iil kan siyaasad meesha la kaalaya hadhowna soo Soomaaliland oo dan maaha muhiimaddu marka amba Israa'iil ha joogto amba Israa'iil ha tagto amba carab ha joogo amba carab ha tage muhiimaddu soo danta Soomaaliland maaha marka waxa la idinka baahan yahay siyaasadii aad dawlado kale ku keeni lahaydeen baa la idinka baahayay ajandayaashii xilligii aynu inagu istiijiidan lahayn oo dhan ictiraafkaas waa basal iyo waa hurud 730 sanaynu u taagnin ictiraaf basali baad sheegaysaa bal mid ii sheeg dameer saaran imaado marka kor aan isku yara qaadno xisbiyada mucaaridka ah kor inoo yara qaada adduunka ku foofa bahasha ballaadhiya sharamaanta iyo loobiga iyo wadamada lala xidhiidhaya ballaadhiya waxa weeye intaasoo kunoo jaanis baa haysataan waxa weeye ii sheeg xabad baa la keenay intii kaloo dhan baa idiin bannaan hal waddan baa laga keenay ictiraaf waxaa bannaan 199 waddanoo kala hadhay adduunku intaasuu leegi journalist samaysta oo lobby samaysta oo waddamada kale sida loo saameeyo barta oo waxa weeye ii sheeg dadka tijaarada ka bilaabmata iyo ganacsiga kadibna dabaqada siyaasiga gudubtaa kadibna saas u sii socotaa dadka taajiriinta waddamada jooga la hadla loobi garaya siyaasiyiinta waddamada jooga isku soo rida bahasho isku soo dabarido marka dambana ictiraaf dhammaystiran dee kaga gata codkii ilaa annagu cod uma hayno wax kale ma hayno codka nagaga gata ictiraaf kale marka waxaan odhan lahaa yacni kor isku qaada intaasun baan anugu odhan lahaa siyaasadda daakhilka aniga waa lagaga fiican yahay bahasha dee xagga sare anu ka joogaayo xaggaa sare inaan maasha ka ilaaliyun baan jecelahay marka anu intaas baa odhan lahaa imika waxna maraya waa ictiraaf waxaan ka yarayna mari maayo cirrana anagu waxaan aaminsanayo nuclear sigayba cirro nuclear buu sigay nuclear inuu laba madax inuu keeno uu dirqi ku sigay dirqi marka aad baa idiin salaamaya